السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada akhyaaray oo ku soo dhawaada channelkeena cilmi faafiye. maanta waxaanu qaadanaynaa cashir ka mid ah cashiradeena Englishka ah ee aan hore channelkeedii ku soo gelin jiray. arday haddii aadan hore cashirada aan u arag videogan xaqiisa hoose ee qaybta committee ayaan linkiyadooda idin soo dhigi doonaa ka faa'iideysi wacan arday. haddaba inta kadib cashirkeena aynu iska bilaabano ee isla socod wanaagsan. cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ha isticmaalin kelimada okay ee isticmaal kelimadahan oo maanta loogu isticmaalka badan yahay halkii aad ka dhihi lahayd okay ayaa kelimadahan soo socda la isticmaalaa maanta. run ahaantii kelimadan okay waa kelimad dadku ay mar walba isticmaalaan, adigana waxaan rabaa inaad ka duwanaadid dadka oo isticmaashid kelimadahan soo socda ka cusub iyada ee maantana loogu isticmaalka badan yahay saan idin sheegay ee daily use-ka ah. marka aynu iska bilaabanahay, let's go. كلمة كوباد و very enough very enough Fair enough. كلمة very enough waxay la macno tahay okay. sida kaaga muuqata waa laba kelmadood very oo kelmad ah iyo enough oo kelmad ah. haddaba labadoodan oo la isku qabtay oo sidaa isku xiran very enough haddii aad aragtid macnaheedu waxa weeye okay ay la macno tahay. كلمة waxaa aad u isticmaalaa Britishka, sidoo kalena Mareykankana yara isticmaalaa, balse Britishka aad u isticmaalaa. For example, haddii aanu sentence gelino ka soo qaad saaxiibka baa kugu yidhi I'll give you money if you answer a question that I want to ask you buddy. I'll give you money if you answer a question that I want to ask you buddy. oo macnaheedu noqonaysa lacag baan ku siin doonaa haddii aad ka jawaabtid su'aashan aan rabo inaan ku weydiiyo saaxiib. I'll give you money if you answer a question that I want to ask you buddy. adna adigoo aan isticmaalin kelimada okay oo isticmaalaya kelimada very enough ayaa tiri sidan very enough like this question is what I like man so ask me. oo macnaheedu noqonaysa su'aasha noocan oo kale ah oo waxaan jeclahay niyo ay weydii very enough like this question is what I like man so ask me. kelimada inoogu xigta waa all right. inaad all right tidhaahdid waa caadi oo waxay la macno tahay kelimada okay. marka kelimadan all right waxaa loogu dhawaaqaa laba qaab, sidoo kalena waxaa loo qoraa laba qaab. haddaba maxay yihiin labadan qaab aynu isla eegno. qaabka koowaad ee loo qoro waa sidan caadiga ah hadda ay u qoran tahay ALRIGHT all right, waxaana loogu dhawaaqaa sida hadda aynu ugu dhawaaqayno all right. haddaba markan aynu isla eegno qaabka labaad ee loo qoro sidoo kalena ee looguna dhawaaqo. qaabka labaad ee loo qoro waa sidan hadda aad aragtaan AIGHT, waxaana loogu dhawaaqayaa I, laakiin sida hadda qoraalka uu u dhigan yahay sidaa loogu dhawaaqi maayo. sidan qofka hadduu yiraahdo ugu dhawaaq waxay noqonaysaa 8, laakiin loogu dhawaaqi maayo, waxaa loogu dhawaaqayaa I. run ahaantii kelimadan anigu waan jeclahay sometimes inaan isticmaalo oo way dhacdaa inaan isticmaalo, laakiin markan ay qaabkan u qoran tahay I loogu dhawaaqayo qaabkanna ay u qoran tahay AIGHT waa informal maaha formal, waa informal, waa all right oo maldahan. marka haddii dhinac kale laga eegana waxaan odhanaynaa waa afsuuqi, laakiin labada all right iyo I waa isku macno. inaad fahanteena waa muhiim oo labadaba aad isku baratid. haddii aynu sentence gelino kelimadan I ka soo qaad saaxiibka baa kugu yidhi I want to tell you something which is really good for you man, oo macnaheeda noqonaysa waxaan rabaa inaan kuu sheego wax adiga ku fiican niyo. adigana misaad ku jawaabtay sidan I tell me buddy ama all right tell me buddy, oo macnaheeda noqonaysa waa yahay ii sheeg saaxiib. laakiin kelimadan I ama all right sidoo kalena okay ahaan oo keliya looma isticmaalo. waxaa dhacda oo jirta in laba qaab oo kale oo macno kala sameynaya laakiin okay aan loogu jeedin ayay samaysaa, oo laba qaab oo kale waa loo isticmaalaa marka laga yimaado loo isticmaalo okay ahaan. haddaba labada qaab ee kale ee loo isticmaalo iyagana aynu isla eegno. kow waxaa loo isticmaalaa
inaad ku tirahdid qof ma fiican tahay oo kale. Tusaale ahaan in English, are you good? Markaad qof ku leedahay are you good, micnaheedu waa maxay? waa ma fiican tahay. haddana haddii aad qaabkan tirahdid are you alright, micnaheedu waxa weeye ma fiican tahay markan alright xag danbaa la geliyey. are you alright, ma fiican tahay. are you alright, ma fiican tahay. are you alright, ma fiican tahay. marka qaabka koowaad ma fiican tahay oo kale in qof aad ku tirahdid ayaad kelmadan I isticmaali kartaa. are you alright, ma fiican tahay. qaabka labaad ee loo isticmaalo kelmadan I waxay noqonaysaa soo ma aha. tusaale ahaan qof baad hadal badan kusoo tidhi misaad u dambaysiisay kelmadda soo ma aha. iminka innaga haddii aan tusaale keenno qofaad ku tidhiba inuu shalay waxaad samaysay waan ku ogaa, maantana waxaad rabtaa inaad sheekadan aad ku dartid soo maha. marka kelmadda soo ma aha ee xag dambe la dhigo inuu shalay xagganaad marti waan ku arkay, maantana inaad idhaaftid baad doonaysa adoo aan isalaamin soo ma aha. kelmaddaas soo ma aha. iyo sidoo kale waxaa jirtoo kale kelmadda yaa oo kale, kelmadda yaa loo dambaysiinayo. iminka haddii taana aan tusaale u keenno waxay noqonaysaa adigoo qofku yidhaahda waxaas ha samaynayaa, haddii aad waxaad samayso waxaasaa kugu dhici doonanayo yaa. marka kelmadda yaa aynu isticmaalno iyo markii aynu isticmaalno kelmadda soo maaha waxaad rabtaa inaad cunto soo maaha ayaa kelmaddan I la isticmaalaa. haddaba aynu u keenno tusaalayaal. haddii aynu sentence English ah aynu gelino si aynu ugu fahanno waxay noqonaysaa bro you wanna help me I, bro you wanna help me I, oo micnaheeda noqonaysa walaal waxaad rabtaa inaad caawisid soo ma aha. bro you wanna help me I. markan I waxay nagu jirtaa sida aad aragtaan soo ma aha xag dambe. bro you wanna help me I, walaal waxaad rabtaa inaad caawisid soo maha. tusaale kale haddii aan uga keenno anigaaba adiga kugu yidhi hey bro I'll be back in a sec so don't go I. hey bro I'll be back in a sec so don't go I, oo micnaheeda noqonaysa waliya walaal second gudihiisaan kusoo laabanayaa ee ha tegniyaa don't go I, ha tegniyaa. marka kelmaddan I intaas oo qaab ayay leedahay. kelimadda saddexaad waa of course. kelimadda of course inaad tiraahdid waxay la macno tahay okay. haddii aad okay tiraahdid iyo haddii aad tiraahdid of course waa same, waa isku mid. haddaba aynu kelmadda ugu dambaysa ee inoogu xigtaa aynu isla egno. kelmadda afaraad ee inoogu dambaysa waa okidoki. kelimaddan sidoo kale waxay la macno tahay kelmadda ah okay. haddii aad okay tiraahdid iyo haddii aad tiraahdid okidoki waa same. waayahay kelmaddan okidoki iyadu waa informal oo waa okay oo maldahan. si kale haddii aynu dhignana kelmaddan okidoki waa afsuub. marka waxaa jirtaa xiliyo adiga aadan isticmaali karin iyo xiliyo ay caadi ku tahay inaad isticmaashid. haddaba xiliyada aadan isticmaali karin waxaa ka mid ah markii aad waraaq CV aad qoranaysid ma qori kartid oo maaha munaasib inaad qortid oo aad isticmaashid kelmaddan. sidoo kale waraaq markaad meel xafiisa ama waraaq tacliimi ah markaad qoraysid ayadana kelmaddan ma isticmaali kartid oo munaasab maaha. sidoo kalena markaad joogtid meelaha professional placeska sida marka aad golo fadhidid, markaad meelo layskugu imaanayo oo gola aad fadhidid kelmaddan ma isticmaali kartid. sidoo kale kelmaddan ma adeegsan kartid macallimiintaada oo markaad u jawaabisid kelmaddan okidoki ma isticmaali kartid oo munaasab maaha. haddaba waxaad u isticmaali kartaa oo ay caadi ku tahay inaad u isticmaashid asxaabtaada oo aad isfahansantihiin iyo sidoo kale familigaaga, xubnaha familigaaga oo caadi waad u isticmaali kartaa. haddii aynu sentence gelino kelmaddan waxay noqonaysaa ka soo qaad inuu saaxiibkaa ku yidhi bro I want you to give me a hand, bro I want you to give me a hand, oo micnaheeda noqonaysa walaal waxaan rabaa inaad caawisid. intaa kadib adigana waxaad ku jawaabtay adigoo kelmaddan okidoki adeegsanaya
Okay, okay, bro. Don't worry, I'm here for you. Okay, okay, bro. Don't worry, I'm here for you. oo micnaheeda noqonaysa waayahay walaal hawlwelin adigana halkan ku joogaa. Okay, okay, bro. Don't worry, I'm here for you. halkaas ayuu inooga egyahay arday cashirkeenni maanta oo casharada noocan oo kale ah way fara badan yihiin oo qaybo ayaan idinka soo samaynayaa insha allah salaasi kasta waxaan channelka idin soo gelin doonaa casharadeena Englishka ee taxanaha inoo ah fadlan haddii aadan hore subscribe usiin oo aad nagu cusub tahay fadlan hadda subscribe saar oo gambalelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee arka daawada cashirka markaan soo geliyo marka inta kadib wixii su'aalaad haysaan xagga hoose commentiga igu reeba iyo wixii talo iyo tusaalaad haysaan sidoo kale xagga hoose commentiga igu reeba insha allah haddii ay jiraan cashirkeena maanta kelmadaad ka faa'iido aadan hore u aqoon iyagana xagga hoose inoogu xus insha allah waa inoo iyo kulanti dambe oo xiise leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Close till I get up. Time is barely on our side.